masaa'ibta aakhirada taalla masiibada ugu yar waxay noqon doontaa dhimashada. ahla naarka walciyaadu billaah, allah inaga badbaadiya naarta, amiin dhahada. markii naarta ilaahay uu ku ekaysiiyey galaan, waxa qur-aanka ilaahay uu noogaga warramay inay 40 sannadood malaga maalig la yidhaah ay u dhawaaqayaan. maxay ku dhawaaqayaan? wanaadow yaa maaliku liyaqdi calayna rabbuk, wanaadow yaa maaliku, malik waa malaga furaha naaraha hayo weeyaan. malagaas weligii ma qoslin baa la yidhi, sidii loo abuuray shakalka lagu abuuray bilaa qosol ayuu ku taagan yahay baa la yidhi. malagaasay u dhawaaqayaan 40 sannadood, ay leeyihin yaa maalik liyaqdi calayna rabbuka, rabbigaa waxaad naga gaadhsiisaa naftaba ha nagaga jaro. waxay dhimashada u tamaninayaan, waayo cadaabka iyo dhibaatada naarta ku dhex haysata ayaa ka weyn dhimashada. afartan sano kadib ayuu u jawaabayaa, ayuu leeyahay qaala inakum maakithuun, dhimasho ma jirto, weligiin iyo allihiin halkaa baad ku waaraya sanad ku jiraysaan buu leeyahy, dhimasho way dhammaatay khalaas. adhabtum طayibaatikum fii xayaatikum addunya wastamtactum biha falyawma tujzawna cadaaba alhuun. raaxadiinnii, tumashadiinnii, jannadiinnii, xorriyaddiinnii adduunkaad ku soo qaadateen. 60kii sane ee adduunyada ayaad xaqiiqo moodeen ood wixiina ku soo qadimateen. waxaan cadaab ahayn maanta ma lihidine, halkaabaad weligii ku jiraysaan buu leeyahay. marka maanta adduunyaan joognaa, beritool aakhiraan tegaynaa. arinii maada qadamta lihada alyowm. addoommaha ilaahay ka mida ilaahay